Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Geeriyaad xanuun badan murugo iyo tiraayo maharta ku reebtay qulubta dadka Soomaaliyeed ayaa galabta soo yeertay. daawade intaan u gudagelin warbixintan waxaan ka codsanayaa in sargaalkani ku dhintay difaaca dalkiisa inaad u ducayso muuqaalkana aad sheer garayso oo asxaabtaada aad la wadaagto. waa geeri ku timid gaashaale Maxamed Cabdiwaxiid Faarax oo ka mid ahay wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda dhiigga cusub ku shubay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa galabta ku geeriyooday dagaal ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. 2005 ayuu ku biiray ciidamada dawladda xilligii Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo baydhabo joogay xilligaasi. hal xaas ayuu qabay oo u dhashay 3 cunug oo kala ah, hal wiil iyo 2 gabdhood. wuxuu ka soo jeedaa deegaan ahaan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. madaxtooyada Soomaaliya isaga oo ka shaqeeya ayuu door biday inuu hogaamiyo ciidamada difaacaya dalka oo dhexda u xirtay tagayna jiida hore ee dagaalka. Maxamed oo ahay nin dhalinyaro ah oo mar dhow helay darajada sargaalnimada ayaa lahaa hami aan caadi ahayn oo ah inuu noqdo mid xoreeya dalkiisa iyo dadkiisa. aad buu u dhibsanayay in dalkiisa maanta yahay mid ay joogaan shisheeye gaaraya 24,000 oo askari. uu dhaliilsanaa in aan daacad laga ahayn deganaanshaha dalka iyo sidoo kale dib u soo celinta amniga labaduba. mar la weydiiyey inuu heli karo shaqooyinka leexsan oo aan furinta dagaalka ahayn askarinimo, wuxuu sheegay inuu isaguba door biday inuu noqdo mid taariikh qora oo uu shaqo leexsan oo mushaar fiican weliba madaxtooyada Soomaaliya uu ka tagay si uu askarinimo u noqdo isla markaana dalkiisa iyo dadkiisa aawadeed uu u dhinto isagoo difaacaya. waxa uu dhex deganaa filo ku dhex jirta xayndaabka madaxtooyada, qoys qurxan, gaari aan xabadu karaynin iyo ilaalo gaar ah ayuu markaasi lahaa. waxa uu taliye u ahaa urur dhan oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor oo uu awoodi karayay inuu magaalada iskaga tamashleeyo oo uu markaasi si farxaan ah isaga noolaado magaaladii uu markaasi joogay. intaas oo dhan inta uu maalin cad ka tagay ayuu duurka u galay sidii uu dalkeenna u difaaci lahaa, argagixisadana uga saari lahaa. waxa uu aaminsanaa fikir ah inaanu macno lahayn faakihaysiga iyo nolosha qabow iyadoo dalkeenna ay joogaan cadow arxanlaawe ah oo ka shaqaynaya gumaadka dalkeenna. sargaalku waxa uu naf waayay isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee difaaca dalka iyo dadka ee Ilaahay ha ka waraabiyo. Janaratul Firdaws samir iyo iimaanna ha naga wada siiyo maadaama uu u dhintay isagoo difaacaya dalkiisa iyo dadkiisa. gaashaanle Maxamed Cabdiwaxiid waxa uu ahay taliyaha ururka 15aad ee ciidanka Gorgor. wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ku sifoobay dal iyo diin jacayl oo aan marnaba ka go'i doonin qulubta dhalinyarada, shacabka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. fadlan u soo duceeya marxuumkan in Ilaahay Jannatul Firdaws uu ugu bishaareeyo, kitaabkiisana midigta uu ka siiyo. haddii uu ku soo gaarana muuqaalkani sheer garee si dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ay ugu wada duceeyaan. Ilaahay ha u naxariistee.